halkan waxaan ka salaamahayaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha xafladan aadka u quruxda badan oo ka dhacaysa degmada Bandiiraley dhammaanteen inta joogta xafladan iyo inta dib u arki doonta inta Bandiiraley u dhalatay oo jaalidaha iyo dalka iyo deegaanada joogta iyo inta galmudug u dhalatay oo caawa xafladan dhammaantood ay ka dhaxayso meel ka soo joogtaanba waxaan leeyahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh salaam bacdigeed marka koobaad waxaan halkaan ka xusahayaa dadkan sharafta badan oo ka soo qayb galay xafladan oo caawa aan magacooda la koobi karin xogayaha degmada Bandiiraley agaasimaha arrimaha bulshada degmada Bandiiraley gudoomiyaha ururka dhalinyarada ku xigeenkiisa afarta gudoomiye ku xigeen hadii ay ku ruan yahay dhammaan marti sharafta kale oo ka timid hadii ay ku ruan yahay magaalada Kaalkacyo nooga timid oo ka mid yahay Cabdirashiid hadii ay ku ruan yahay Xabad waxaan ku leeyahay dhammaan ruux kasta oo aan magacaabay ururka hooyooyinka gabdhahan sharafta badan qaybta isboortiga ciidamada amniga dhammaan ruux kasta oo magacaabay mid aan magacaabinba waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waxaan leeyahay sidaad xafladan u soo abaabusheen oo aad meeshaan isugu timaadeen oo aad qarintiina u wadateen dhammaantiin waxaan idin leeyahay hambalyo idin leeyahay taas markaan oo gudbo 17 guuradii galmudug oo u horeeyay madaxweyne kiimiko oo lagu aasaasay maalintii koowaad Kaalkacyo Cabdullaahi Ciise israacintii u dambeysana lagu dhameystiray quraca caawa rag badan ka soo sheekeynayay oo ku yaala Bandiiraley oo 17 sano jirsaday oo ku xigay madaxweyne Caalin oo ku xigay madaxweyne Cabdi Qaybdiid oo ku xigay madaxweyne Cabdi Kariin Xuseen Guuleed oo ku xigay hadii la kuuran yahay Axmed Ducaale Xaaf maantana gacanta uu ku hayo Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor dhammaantood waxaan leeyahay